Somaliland waa dhul ku yaala waqooyiga Soomaaliya oo ka kooban gobolada Awdal, Waqooyi Galbeed, Togdheer, Sanaag iyo Sool. Somaliland waxa ay leedahay taariikh qoto dheer oo la xiriirta ganacsiga, diinta Islaamka, dhaqanka Soomaalida, gumeystihii reer Yurub iyo halgankii xornimo-doonka. Intii uu jiray burburkii Soomaaliya, Somaliland waxay ku dhawaaqday gooni-sutaag waxayna noqotay mid ka mid ah dhulka ugu nabdoon Geeska Afrika, inkastoo aan si rasmi ah loo aqoonsanayn. Dhulka Somaliland waxa uu ahaa mid ka mid ah goobaha ugu horreeyay ee Soomaaliya ku dhaqmaan xoolo-dhaqatada iyo ganacsatada xeebaha. Magaalooyinka Saylac iyo Berbera ayaa qarniyo badan ahaa xarumo ganacsi oo isku xiraya Carabta, Farsiyiinta, Indiya iyo Afrika. Diinta Islaamka ayaa dhulka soo gaartay qarnigii 7aad, waxaana Saylac noqotay xarunta diimeed ee caalami ah. Qarnigii 19aad, Ingiriiska waxa uu qabsaday dhulka Somaliland ayaga oo ka dhigay British Somaliland Protectorate 1884. Inkastoo uu Ingiriiska ka talinayay, haddana waxaa jiray iska caawin xoog leh, gaar ahaan hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulle Xasan 1856-1920. Daraawiishta waxay muddo ka kooban 20 sano kula dagaalamayeen Ingiriiska xulufadiisa, taasoo ka mid noqotay halgankii ugu dheeraa Afrika ee lagu xoreeyo. 26 Juun 1960, Somaliland waxay ka xorowday Ingiriiska waxayna noqotay dal madax bannaan oo leh calan iyo dowlad. Inkastoo ay heshay aqoonsi caalami ah oo dhowr dal ah, haddana hogaamiyaashii Somaliland waxay doorteen inay ku biiraan Soomaaliya Talyaaniga Italian Somaliland si loo dhiso Jamhuuriyad Soomaaliya. 1 Luulyo 1960, labada dal waxay ku midoobeen Muqdisho waxaana la dhisay dowlad dhexe. Sanadihii 1960-meeyadii iyo 1970-meeyadii, dadka waqooyi waxay dareemeen in aan si siman loola dhaqmin, ayna ka muuqato takoor siyaasadeed iyo dhaqaale. 1981, waxaa la aasaasay ururka SNM Somali National Movement oo ka dhashay Hargeysa, kaasoo dagaal kula baxay taliska Siyaad Barre. 1988, dowladdii Siyaad Barre waxay duqeysay magaalooyinka Hargeysa, Burco, kumanaan qofna waa la dilay, 100,000 kunna way barakaceen. Tani waxay dhalisay nacaab iyo kalsooni darro weyn oo waqooyiga ku qaban midnimada Soomaaliya. 1991, markii dowladdii dhexe Soomaaliya dhacday, beelaha waqooyi waxay ku shireen magaalada Burco, halkaasna ku dhawaaqeen in dib ay ula soo noqdeen madax-bannaanidii 1960. waxaa la aasaasay Jamhuuriyadda Somaliland waxaana la dhisay nidaam dowladeed iyo dastuur u gaar ah. Inkastoo ay aqoonsi caalami ah la helin, haddana Somaliland waxay horumar weyn ka samaysay nabadda, amniga iyo dimuqraadiyadda. Somaliland waxa ay leedahay madaxweyne iyo xukuumad la soo doorto, baarlamaan iyo golo wakiilo, ciidamo iyo booliis gaar ah. Doorashooyin ayaa si joogto ah uga dhaca, taasoo ka dhigaysa mid ka duwan Soomaalida inteeda kale. Magaalada Hargeysa waa caasimadda Somaliland, halka Berbera ay tahay teked muhiim ah oo istiraatiiji ah. Somaliland aqoonsi caalami ah weli maysan helin, taasoo caqabad ku ah horumarka dhaqaale iyo siyaasadeed. Gobolka Sool iyo Sanaag mararka qaar waxaa ka dhaca colaad la xiriirta maamulka Puntland ee Soomaaliya. Dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu inta badan ku tiirsan yahay xoolaha nool, lacagaha ay dibadda ka soo diraan qurba joogta. Somaliland waxaa loo arkaa dal aan la aqoonsanayn laakiin si buuxda u shaqeeya. Waxa uu caan ku yahay nabadda, xasiloonida iyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee ka jira. Inkastoo uu caalamka u aqoonsado qayb ka mid ah Soomaaliya, haddana shacabka Somaliland waxay ku adkeysanayaan gooni-sutaagooda.